Waddanka Congo ayaa lagu soo waramayaa in uu si aad ah uga dillaacay cudurkii dilaaga ahaa ama fayraska dilaaga ah ee Ebola. Cudurkan ayaa sanado hore dad badan ku baabi'iyay wadamo badan oo Afrika ah. Ha yeeshee, waxaa lagu soo waramayaa in uu iminka si xoog ah uga dillaacay waddanka Congo, halkaasoo lagu soo waramayo in ugu yaraan 60 qofood ay cudurkaasi u geeriyoodeen. Waxaana lagu soo waramayaa cudurkan Ebola gobolka uu ka dillaacay in uu xuduud la leeyahay wadamada Suudaanta Koonfureed iyo waddanka Uganda, taasoo cabsi iyo walwal badan ku abuurtay in uu cudurkani ku sii faafo dalal kale oo Afrikaan ah. Qiyaasta ilaa iyo hadda la soo warinayo gobolka uu ka dillaacay cudurkan ayaa la sheegayaa marka laga soo tago 60 qofood ee u geeriyootay in hadda fayraska calaamadihiisa lagu arkay ilaa iyo 250 qofood kuwa oo hadda looga shakisan yahay in ay fayraskani qaadeen. Waxaana xogtan soo gudbisay hay'adda CDC ee Midowga Afrika u qaabilsan dhanka caafimaadka dadweynaha. Dhimashada ayaa lagu soo waramayaa in tirada ugu badan ay ku geeriyoodeen gobolka Ituri oo xuduud la leh wadamada Uganda iyo Suudaanta Koonfureed. Mas'uuliyiinta caafimaadka gobolka ayaa maanta oo Jimco ah kulan degdeg isugu imaanaya oo ay uga arrinsanayaan sidii looga hortagi lahaa faafidda cudurkan halista ah ee dilaaga ah. Khatarta faafidda cudurka ayaa sii kordhayso maadaama uu jiro barakac xooggan ee ay sameynayaan dadka reer Congo oo ka dhalatay macdanta laga qodayo goboladaasi iyo sidoo kale rabshado iyo qulqulatooyin ka jira gobolada qaar ka mid ah waddankaasi Congo. Waxaana lagu soo waramayaa in ay adag tahay raadraaca tirada ugu badan ee dadweynaha isaga kala gooshaya xuduudaha iyo gobolada kala duwan ee dalkaasi, taasoo ay ku tilmaantay hay'adda CDC ee Midowga Afrika u qaabilsan dhanka caafimaadka qaaradda in uu cudurkani si fudud ugu faafo dalal badan oo Afrikaan ah sida kal horeba dhacday. Fayraska Ebola ayaa ah qandho aad u argagax badan oo naadir ah, waxaana lagu soo waramayaa in uu leeyahay dhiigbax oo si fudud ugu faafo dadweynaha kala duwan ee iska agdhow jirkana qaybihiisa kala duwan dhibaato xooggan u geysto, taasoo sababta ugu dambeynta dhimasho degdeg ah. Fayrasyada kala duwan ayaa hadda kusii badanaya wadamo badan oo dunida ah, iyadoo toddobaad ka hor la helay fayraska Havantic oo ka dillaacay markab dalxiis ah oo ay u geeriyoodeen dad badan isagoo isaga kala gooshaya markabkaasi dalxiiska qaaradaha Ameerika, Yurub iyo Afrika. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.